xisbiga haya talada jamhuuriyadda goonistaaggeeda ku dhawaaqday ee Somaliland iyo kulmiye iyo labada mucaaradka ah ee u codiya wadani ayaa maanta ku kala kacay wadahadal ay ku gorfaynayeen sidii loo dhaqangelin lahaa taladii ay hore u soo jeediyeen guddidii dhexdhexaadinta ee khilaafka dhex yaallay xisbiyadu ay ka odeeyeen ee qodobada ay ka soo saareen xisbiyada mucaaradka ayaa sheegay inay isku afgaran waayeen sidii arrintaa loo dhaqangelin lahaa wariyaha BBC-da Sidiiq Maxamed Burmad ayaa haddaba shirkaas markii ay ku kala kaceen xisbiyada iyo madaxdooduba waxa uu helay oo uu waraysi la yeeshay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee UCID injineer Faysal Cali Waraabe oo uu weydiiyey bal hadda halka sartu ka quruntay maanta 13 kan shir ee maanta ma kaan sameynay waxaan waramade waqtigii waa dhamaaday maxaa qabateen intii muddada qabsateen madaxweyne waxaan qabanay ma jirto arrintu way naga balaaratay waxaan idin qirinaa inay magaranaysaa guddidaasi aanay guddi qaban karta ahayn marka laga eego xagga tayada iyo xagga experience way aragnimada way daqaad go'aankina waanu qaadanay laakiin sharci ma hayno sharci nasiya sharci ma hayno marka maxay ka dhigantay macnaheedu sharci ku kala jaro ma hayno dabaxan yaano marka caawiyo saan ku caawinayo dialoog reerahoodii waxaan de aqli kale waxaan waxaad ma jirtay madaxweynaha haye arintii u yeero xataa isasila wax kala farsamay sida hore loo sameeyo madaxweynaha hore iga geysana magaano geesimay buu halkaas uu istaagay madaxweyne Faruuq taagay arintii go'aankii waan ogolay mana ogolay isku dhex jira way macnii ogolay afka laakiin ficlahan marka idinka waad ka timaadeen warbaahintan waad la hadasheen maxaa idinka idin xiga go'aan iyo talaabo waanu ku isku noqonaynaa insha Allah taala guddidiina waanu wargelinna laakiin anu Faysalaana iyo xusbaan waxa la arrintu tahay ka weyn tahay dalku badbaado u baahan yahay moos laba sano oo hay'ad dalka waxa muuqata dalkii inuu soo ururiyo hareeraha ka soo ururiyo ee gudihiina ka furfumayo meesha wadanku qaalaasa waxaan sharci ahayn idna aqbal ma isna qofku sharci gaciisa ku qaato maha magaalo waxaan jeclahay insha Allah taala soo jeediyay marka wax isku yimaadaan odayaashana uu soo jeediyay marka soo nimaadno in shir badbaado qaran la sameeyo أنا ما دون إنه أفتونت areas إلى تسعين الصومالات بربرتو أو واحد مسقالة درجة كبربرتو أو قف أود كبربرتو مدحوينه كبربرتو waxaa jirta in mas'uul ka tirsan xisbigaagu ilaa imika uu xiran yahay ma ka wada hadasheen maxaa ka soconaya ee xal ah sidee baad soo aragtaa xariga siyaasiyiinta habeen hore ka wada hadalnay madaxweynaha oo yiri ninkan maxaad u haysataa inaan intaas la iskariinayay markaan shalay tahay war soo daamada ninkan wixii waa seediga ii dhaaf arumaha seediga soo dhaxgalbiyo waxaan door wax xoqayahaygii dibada wixii waxyaalahaas isku haysanay ii dhaaf seediga biyo marxaatiyaas la fadhiyo waxaa jirtay warar sheegay in adiga laftigaaga dacwad laga gudbiyay inkasta oo aan maqlay inaad ka wada hadasheen oo ka heshiiseen anigu madax imay soo gaadhay dacwadaas laakiin wax ka xun bay ugu sameeyay madaxweynaha uu la dagaalamay تدلعتك بيشة عن قرينني تلك الدنت كيسان كيلالينني ملعون مقل حفيز كيسو يقول تقالمي هو ينعي أنت يقول صوت وري هلو هو إذا وحكوا سميه ويري لا يقول صوت أرضي لكن إحنا يانا شيقين لكن هذا هو شيقين محل مركا كيني اسكو دعضان أما قاعد سوق هذا أرنتا واحد اسكو كيني نكا لكن لا هو رمح يعني رمح وارن بعض الصوت شري وحي وشرعي وحن شرعي ما هذا عينكاس نقطة دوين إنه استهفنا marka idinka waxa tihiin xisbiyadii mucaaradka ee la xisaabtami lahaa dawladda ee loo irkan lahaa ba tihiin dhaliisha dawladda maaragtay ee indhaha ku hayn lahaa lagu xisaabtamiyay inay bedelaan maxaa marka idin meel yaala maxaa idin qorshaysan rasmiye la idinkaga tala gali karaa waxa weeyaan madaxweyne ma ogolaan in la xisaabtamo in la taliyo in la shaqeeyo in la karisaas gareeyo wax laga sheego ma ogola madaxweyne xajiis waan istilo anaga ma doona dalkayga martaba dagaal soo ka dhaca de maanta hadana aan noqdo warlord uma diyaariyo marka talan isku noqono waa talan reer Soomaaliya oo tan taagantahay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka injineer Faysal Cali Waraabe ayuu kaasi ahaa waxa se dhageystayaal naga xasuusina in eedaynta uu sheegay injineer Faysal aanan ilaa haatan wax cadeyna u haynin walina aanu ku daba jirno in aanu xog buuxda ka helno iyo waxay ka oranayaan xafiiska warfaafinta ee madaxweynaha Somaliland